kulanka madaxweynaha Puntland Siciid Deni iyo ergey gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswam oo ka qabsamay qasriga madaxtooyada ee Garowe waxay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa khilaafyada soo noqnoqday ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada. madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa tilmaamay inay isla qireen in loo baahan yahay in la wada hadlo. runtii dhinacyadeenba waxay qirayaan in marxaladda hadda Soomaaliya ay ku jirto ay u baahan tahay wada hadal dheeri ah. waxaan si dhow uga wada hadalnay sidii isu soo dhaweyn looga sameyn lahaa dawladda federaalka iyo xubnaha dawladaha federaalka ka ah xubnaha gaar ahaan arrinta Jubbaland oo runtii muddadii u dambeysay caqabad ay ka taagnayd. waxaan rajaynayaa dadaalka ay wadaan iyo dadaalka guud oo dadka kale ee Soomaaliyeed wadaan iyo dadaalka ay Puntland ka wado arrintaas kaalinta ay ka qaadan lahayd inay mari dhali doonaan. dhankiisa ergey gaarka ah ee qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswam ayaa ugu baaqay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada inay soo celiyaan wada shaqayntii dhexdooda taasi oo uu sheegay inay tahay danta dadka Soomaaliyeed. That we strongly encourage all Somalis to work together. waxaan si aad ah dhammaan Soomaalida ugu dhiirigelinaynaa inay wada shaqeeyaan. arrimaha ugu muhiimsan waa doorashada 2020 dhamaystirka dib u eegista dastuurka iyo kor u qaadista ammaanka si looga hortago al-shabaab. waxaan ugu baaqaynaa dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah inay soo celiyaan wada shaqayntii dhexdooda taasi oo ah danta dadka Soomaaliyeed. waxaan uga mahadcelinaynaa madaxweyne Deni dadaaladiisa goorta hore ee soo celinta xiriirka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada sida shirkii Garowe ee bishii May. By convening the Garowe meeting in May. wax ka yar sanad ayaa ka dhiman doorashada guud ee dalka walina ma jiro heshiis ku saabsan qaabka ay u dhici doonto ay gaadheen labada dhinac waa dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu. arrinta Jubbaland ayaa iyana ah qodob kale oo taagan oo aan wali dhanna u dhicin. Maxamed Saalax, SBC, Garowe.